kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaaga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada iyo sida colaadaha xal waara looga gaari karo. qodobada aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah dadkii ka soo cararay dagaaladii Wisil iyo Bacaadweyn oo duruufo nololeed ku wajahaya xirooyinka dadka soo barakacay ee Gaalkacyo, qoysas dib ugu laabanaya deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar kadib markii xal laga gaaray colaad beeleed ka jirtay halkaas, iyo waraysi aan idinkaga hayno sida xal waara looga gaari karo colaadaha soo noqnoqday ee ka jira qaybo ka mid ah dalka. aan ku bilownay qaybo ka mid ah dalka waxaa ka jira dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamul goboleedyada oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab. sidoo kale waxaa jira colaado u dhaxeeya qabaa'il wadadega, iyadoo saameynta ugu badan ay ka soo gaarto dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamayo. waxa ay sababtaa in ay ka cararaan halkii ay ku noolaayeen oo ay ku qancaan nolol aysan qaarkood weli arkin. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug koonfurteeda xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala halkaas waxaa soo gaarayay dad u badan xoolo dhaqato oo ku noolaa Wisil iyo Bacaadweyn oo dagaal uu ku dhex maray ciidanka maamulka Galmudug iyo Al-Shabaab. qoysaskan qaarkood ayaa dhibaato badan u soo maray in ay soo gaaraan Gaalkacyo, iyadoo hadda ay wajahayaan hooy xumo, caafimaad la'aan iyo biyo yari. fartuun cabdiraxmaan diini oo Gaalkacyo ku sugan ayaa ku eegaysa warbixintan nolosha dadkan dagaalada ka soo baxsaday. hooyo Canab Sheekh Cali warsame iyo qoyskooda oo ka kooban 14 qof waxay ka mid yihiin 36 qoys oo ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug bishii Juun ee 2021 iyadoo soo gaartay kaamka dadka soo barakacay ay ku nool yihiin ee Xasan Dhudi. bishii Diseembar ee sanadkii 2021 halkaasi ay uga bilaabatay nolol aysan weligeed arkin. waxay xusteen dagaalada socday ay ku waayeen xoolo u badnaa geel oo ay lahaayeen intii soo hartay oo arigu ugu horeeyana ay abaarta gobolka Mudug ka jirta saameyn ku yeelatay ayna ka soo tageen maadaama aysan awoodin xilligaas in xoolaha la soo qaxaan sabab la xiriirta socodka ay gabeen. Canab ayaa Sooma u sheegtay sidoo kale in guriyihii ay deganaayeen dab la qabasiiyay inta ay dagaaladu socdeen ay ku qasabtay in baadiyaha Bacaadweyn oo cararaan oo markii dambe ay ku qasbanaadeen inay ka soo aadaan xerooyinka barakaca ee magaalada ku yaala oo markii ugu horeysay ay soo miciin bido. waxay tilmaantay inay wax ka helaan aabaha qoyska oo subaxii u xamaali taga magaalada isagoo ka shaqeeya dhismaha guryaha, isla markaana ay jirto in mararka qaar uusan soo heli wax lacag oo ay qadaan. walaaca ugu daran ee Canab ay dareemayso ayaa ah in 7 ka mid ah caruurteeda ay ku waxbarasho seegeen dagaalada oo haddana aysan helin goob ay ka sii wataan waxbarashadooda. soo barakana colaado iyo hanti la'aan. hantidaani waa la gubay, geeleena waa nala ka dhaca lootay, magaadii aan lahayn waa nala ka gubay. waxaan jeclaan lahayn in nolol xayaatir aan ku noolaano, hoys nolol siiyo, taas jeclaan lahayn. xaawo maxamed xasan iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 5 caruur ah, agoon iyo kuwa aabood ay kala tageen, waxay ka soo barakacday magaalada Wisil baadiyaheeda bishii Febraayo ee sanadkan sabab la xiriirta dagaalada u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo Al-Shabaab iyo abaar saameyn ku yeelatay dad iyo duuyo oo ka jirta gobolka. waxay sheegtay in nolosha kaamka Buulo Bishaaro ay ku nooshahay ku adkaatay inay la qabsato ayna u sii dheer tahay korinta ilmaheedu oo kali ku tahay. waxay xustay inay la soo carartay markii ay soo baxaysay 10 neef oo ari ah oo ay hadda ku haysato kaamka ay ku nooshahay. xaawo oo rafaad badan u soo martay safarkeeda Gaalkacyo ayaa tilmaantay in hooy la'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo waxbarasho la'aanta haysata caruurteeda ay tahay dhibaatooyinka ugu horeeyay wajahayaan. waxay tilmaantay in kaamka ay ku nooshahay ee Buulo Bishaaro ay ku hesho lacag dhan $70 bil kasta oo ay bixiso hay'adda barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, taas oo wax badan ka caawisay nolol ahaan. hanti qofka mar hadduu gacanta ku haysan haddii la ku reeyay aan wax xamaalahayo ka horeeya aan leeyahay wala lahayn qofba maanta xamaaltay baahi laba koob karo haddii la ku reeyay waa garan kartaa qof soo qaxay rafaad ku qaba horta waa garan ka dhaan
oo hantina aan badan aan haysan hooskiina ka soo barakacay iyo wadanku deganaa iyo wadankii la qaab yaqaan gudoomiyaha kaamka Calaley ee koonfurta Gaalkacyo Xasan Maxamuud Cabdi ayaa Sooma u sheegay in dadka soo gaaray ay ka yimaadeen magaalada Wisil iyo baadiyaheeda iyadoo bishii la soo dhaafay ee Abriil kaliya ee xerada ku soo biireen 35 qoys oo cusub wuxuu tilmaamay in marka ay dadkani soo gaareen ay siiyeen agabka ay ku dhisan lahaayeen hoyga sida baco biro iyo maryo ay aqal ka samaystaan si ay gambadu uga noqoto Xasan ayaa sidoo kale sheegay in guud ahaan hadda degan yihiin kaamku horjoogaha ka yahay dad gaaraya 273 qoys kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha wuxuu tilmaamay in baahida ugu weyn ee dadkani ka soo qaxay dagaalada u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Galmudug ay tahay hoy xumo maadaama guryaha ay degan yihiin qaarkood ay dumisay dabayl ka dhalatay roob da'ay 10ka bisha May sidoo kalena ay jirto shaqo la'aan badankoodna ay yihiin xoolo dhaqato aan xirfad kale lahayn gudoomiye Xasan ayaa sheegay in awoodda ay u hayaan dadkan ka soo cararay dagaalada ay tahay in qayladaan ugu direen maamulka degmada kan gobolka iyo dawladda dhexe balse aysan wali ka helin wax jawaab wax nadeeqana siiya laakiin dadkan masaakiinta ah in haddii la hoy horta loo dhiso dhulka ayaga iskale qof waliba wuxuu iska leeyahay 13 haddii la yiraahdo ay dawladda Galmudug ay siisay oo ku bixisay waxyaalo macna deeq loo keeno in maarta haddii la yiraahdo shaqo abuur loo sameeyo in maarta dadkan laga warqabo oo la ogaado xaaladooda iyo waxooda in la kontaroolo kaligeena ma ahan kaamamka oo dhan oo ku yaala Galmudug ku yaala waa wada saameynayaan baahidu waa saameynaysaa sababtoo ah ma haystaan kaamamka Xasan Dhudi iyo Boolo Bishaaro ay soo gaareen dhammaan dadkii ka soo cararay dagaaladii dhacay bartamihii sanadkii hore waxa hore u deganaa wadar ahaan 191 qoys iyadoo ay ku soo darsameen 390 qoys kuwaas oo sii kordhiyay culayska ka jira kaamamka way mahadsan tahay wariyaheena Fartuun oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kale waxaa toddobaadidii la soo dhaafay dib u laabanayay qoysas iyana ka cararay colaad beeleed ka jirtay deegaanada Maandheere iyo Daysame oo hoostaga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii odayaasha dhaqanka oo kaashanaya maamulka gobolkaas ay heshiisiin u sameeyeen labadii dhinac ee dagaalamayay waxaa si tartiib ah u soo laabanaya nolosha caadiga ahayd ee deegaanadan sida warbixintan uu ugu eegayo Qaasim Ibraahim weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya in ka badan 300 oo qoys ayaa labadii bil la soo dhaafay dib ugu laabtay deegaanada Maandheere iyo Daysame oo Jowhar hoos yimaada kuwaas oo dhamaadkii sanadkii hore ka barakacay dagaal ka dhacay halkaas oo ka bilowday Murunduleed sababta ay dib ugu noqdeen ayaa ah in maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay sameeyeen dhexdhexaadin labada dhinac iyo xabajoojin kuna baaqay in dadkii barakacay ku soo laabtaan labada deegaan Raxmo Cabdi Muuday iyo caruurteeda oo ka kooban 9 caruur ah ayaa hadda si caadi ah u bilaabay nolol maalmeedkooda kadib markii in ka badan 6 bilood oo ay barakac ku ahayd magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay gaareen maalintii koobaad ee dagaalku dhacay bartamihii bishii November ee sanadkii hore 2020 Raxmo oo hadda maamulaysa gurigeeda ayaa sheegtay in 76 neef oo ari ah oo ay leedahay 14 kamid ay ka galomeen colaadda la xaliyay ee ka jirta deegaanka Daysame oo hoostaga magaalada Jowhar oo ay dadku si tartiib ah ugu soo laabanayaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkan waxay sheegtay in 62 neef oo ay la carartay ay qaarba meel ka keentay kadib markii ay ku kala careen rasaasi dhacaysay maalintii dagaalka ay xusay in ka gaari weyday in ariga ay ka haysato balse ay la qaxday caruurteeda nafteeda iyo soo kale 2 neef oo ay markaas fududeyd inay wado inta ay barakaca ku maqnaayeen ay deganayeen meelgeed hoostiisa ah balse markii ay maqashay in la kala qaaday maleeshiyaadkii dagaalamay ay go'aansatay inay ku soo noqoto hoygeedii wallahi markaa imaanay gurigii oo aan deganayn meeshaan ku nooleynay oo dunsana oo imaanay meelaan 2 qol ay bilbino dhisnatay 3 qol camal ciyaalkii anaga guriga aan seexnay dhulka ku darsamay waxa maanta aan ilmihii meelaan ku haysano ama aan istaagno ma haysano wax gargaar oo maanta na soo gaarine ma jira ilaa iyo hadda dadkii dhan xaafadii way u soo laabteen
anaga burburka iyo dagaalka dhib weyn oo noo geysanaa dad masaakiina nahay inaan la joojiyo dad walaalaha inaad heshiis samaysiin. dagaalka waxaa sababay duldaaqsimeed ay dhowr mar isku qabsadeen labada qabiil ee deegaanada wada deganaa, taasoo ay hadda odayaasha dhaqanka isku afgarteen in si wada jira xoolaha loo daajisan karo maadaama heshiis la dhex dhigay beelihii ku dagaalamay. maxamuud siyaad axmed oo qoyskiisu ka kooban yahay 7 qof ayaa ka mid ahaa dadka kusoo laabtay guryahooda kadib muddo 6 bilood oo ay barakac ku joogeen magaalada Jowhar. maxamuud qoyskiisa oo ahaa xoolo dhaqato ayaa hadda bilaabay noloshoodii caadiga ahayd. maxamuud oo ah 50 sano jir aragga naafaka ah ayaa sheegay in deegaanka uu weli kala xiran yahay oo aanan jirin meel loo shaqo tago, isagoona walaac ka muujiyay xaaladda ay qoyskiisu ku nool yihiin. waxa uu Soomo u sheegay in dagaal beeleedka ka jira deegaanka uu ku noolaa ee Maandheere ay ku qasabtay inuu barakac ka noqdo, xaaladaas oo ay la qabsan waayeen isaga iyo qoyskiisaba maadaama ay ku adkaatay nolosha magaalada oo aysan jirin cid u shaqaynaysa intii ay ku sugnaayeen Jowhar, balse ay ku noolaayeen lacago uu caawinaad ahaan u weydiiso dadka Jowhar ku nool. أنا وعي لها وإحنا ما أركي قف سكداء وقتي وإحنا ما خوكر وحد بعد فربنا إنه كان سد حوالي إني أكل نمان ما مدي أول حوالي سكسو دو جرت هذا الدجال ما ما مدي أري حوالي يراعي جرت أنا قتكتي قف حوالي نور راعي جرو ركن سكو هاي وإذا مركي أنا قتكتي وأنا أقدر سنة وأنا لبتوني دجال كمية مرد من دول عيليني أو دجال ينلوس والله من المركلة سي لو سمي لها أما لو قرب الهدد كان أو دجال على وصول عيلين. nabadoon cali cariif ibraahim oo kamid ah dhaqanka ku guuleysay in la damiyo colaadii ka taagnay deegaanada Maandheere iyo Daymasame ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya inay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiyaadka dagaalamay lana sameeyo xabad joojin. nabadoon cariif ayaa Soomo u sheegay in dadka ay u sameeyeen nidaam ay ku wada daaqi karaan deegaanka, sidoo kalena ay jirto faham ay dadku ka qabaan muhiimadda nabadda, taas oo wax badan u fududeysay inay ku guuleystaan dhexdhexaadintaani. waxa uu xusay in hadda qoysas gaaraya 329 qoys ay guryahooda dib ugu laabteen, sidoo kalena ay filayaan in maalmaha soo aadan dhammaan dadka ay yimaadaan maadaama nolosha deegaanada ay si caadi ah ku soo laabatay. waxa uu tilmaamay nabadoonka inay sameeyeen guddi isku dhafa oo qiimeyn ku soo sameeya khasaaraha ka dhashay intii ay colaadda jirtay si looga xaalo. waa alla mahadiis waanu ku guuleysanay in aan xabad joojin ka sameeyno. odayaasha labada dhinac ayaan u yeernay wayna naga aqbaleen, waxaana ka shaqaynaynaa sidii aan ku dhammaystiri lahayn heshiiskaas la gaaray. dadka waxay rabaan nabad wada noolaasho, mana rabaan dagaal. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa arrintaas nagala shaqeeyay oo markii hore annagoo ku tala jirno na yiri colaadaas soo xalliya insha Allah. Maandheere iyo Daymasame oo aan dagaal qabiil dambe ka dhicin ayaan rajaynayaa wayna dhacaysaa insha Allah. haddaba iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaas ka dhashay isku dhacyada hubeysan iyo saameynta dadka rayidka ah soo gaarta, waxaa sida xal waara looga gaari karo colaadaha soo noqnoqday ee ka jira qaybo ka mid a dalka ka wareysanay maxamed muuse oo wax badan arintan daraaseeyay. maxamed muuse waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka wadaagga, waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan kugu helno. su-aasha ugu horeysan ku weydiinayo waxay tahay sidee loogu guuleysan karaa xalinta colaadaha ka jira qaybo ka mid a dalka? bismillahi raxmaan raxiim. ku mahad celinayaa adiga iyo barnaamijka wadaagba. colaadaha Soomaaliya wax maanta bilowday ma ahanin, waa wax taariikh fog oo horay ilaa Soomaalida weligeed colaad u dhexay jiray, ama deegaan ha isku colaadiyaano, ama xoolaha isku colaadiyaano, ama dadka qudhoodu reernimo ha isku colaadiyaano oo qabiil ku saabsan. waxaan markaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu xalli kara waxay tahay bulshada in la fahamsiiyo wada noolaashaha ama jiritaanka bulshanimo inuu ku xiran yahay in maslaxada caamka la wada fiiriyo oo ah midowga mujtamaca, si yacni qarannimo ay u jirto nabad iyo horumar iyo wax walba u helaan. waa inay mar walba ilaashadaan maslaxada guud oo dan u ah dalka iyo deegaanka iyo dadka intaba. waayahay, marka muhiimad intee la eg ayay leedahay in dadku ay fahmaan wada noolaanshiyaha? muhiimadda ugu weyn waxay tahay
haddii wada noolaasho ayna dadku yacni helin noloshaaba dabcan la weynayaa si guud. marka muhiimadeedu waa tii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay aayadda qur-aankeed wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. dadku waa inay mar walbaba ay fahmaan wada noolaashaha. insaanku waa mar walbaba waa inuu yacni sameeyaa wuxda uu midoobaa si uu isu weheshado oo noloshiisu mid abadiyaho mar walba u jirta ay u noqoto jiilba jiil ay isaga dhaxlaan. maxamedow, maxay tahay tallaabooyinka laga maarmaanka ah si loo yareeyo saameynta ka dhalata colaadaha oo tan ugu badan ay ku dhacdo dadka rayidka ah? waxaa ugu muhiimsan waxay tahay dadka eldariska oo kaleento, dadka mujtamaca social elite-ka, waxgaradka mujtamacu inay u istaagaan si yacni colaadihii saameyntii kala duwaneed oo ka dhalata loo yareeyo, mid cusubna aan hadda loo abuurin. waxa ugu muhiimsan waxay tahay waa inay dadka indheergaradka mujtamacaasu, salaadiintii, aqoon-yahankii, dhalinyaradii, culimadii, inay u istaagaan mujtamacaas in laga badbaadiyo colaadaha sanado badan soo socday. marka wax uga muhiimsan dadka oo indheergaradka mujtamaca ma jiraan, ayaga ayaana muhiim inay u istaagaan. maxay door ah oo ay ka ciyaari karaan arintan ah in la xaliyo colaadaha maamul goboleedyada dalka ka jira? waa su-aal qayima. waa ta ugu muhiimsanbe maamul goboleedku hadduuse doorka ugu muhiimsan asigu qaadan wax soconaya malaha. sababta soomaalidu waxay noqotay federaal states, state walba marka xayndaabka ama deegaanka uu xukumo oo territorialkiisu ogyahay, dadka degan waa inuu u istaagaa maadaama asiga uu yahay hogaankii. dadkuna hogaan la-aan ma jiri karaan. marka qofka koowaad, doorka koowaad waxa laga rabo waa statiska madaxdooda inay u istaagaan si dadkaas loo nabadeeyo, colaadihii, xurgufihii, raadadkii ka dhashay si loo baabiyo ay ayagu u noqdaan doorka ugu horeeya amba kaalinta koowaad. dadka u istaaga ay noqdaan u hogaamiyaan si nabad yacni ay u dhalato. qaybihii dambe ee barnaamijkan, gaar ahaan qaybihii dambe ee wareysigan aan mareyna, sidee colaadaha hubeysan ay qeyb uga noqdeen suuqyada hubka lagu iibiyo ee meelo badan oo ku yaala dalka? suuqyada hubka lagu iibiyo colaadaha waxay ka yihiin qeyb weyn ama doorka ugu weyn ayaga ayaa ka qaataa la dhihi karaa. sababtu waxay tahay haddii colaadu dhacdo, laba reer dhexdood ay wax ka bilowdaan, laba shaqsi, cid walba waxay awood u helaysaa meel yacni hubka waxgumaada ee ka hesho. haddiiba colaadi dhacdo in qolo walba ay hubka heli karto, si fududna ay dhibaata ku dhici karto. haddii suuqyada marka aysan jiri lahayn oo meelaha hubka una fududaa lahayn, waxaa dhici lahayd colaadi xataa haddii ay dhacdo hubka waxgumaado sida lagu hela inay adkaato. sababta soomaalidu weligood way dagaalami jireen laakiin may haysan hub waxgumaado. waxaa laga yaabaa colaado sanado socday, dadka dhimashada dhimatay inay wax iska yartahay labo hal ay naqanayso. laakiin maanta haddii colaad dhacdo laba reer, waxaa laga yaabaa beritu dhimashadu inay ilaa 50-100 gaarto. waana sababta ugu weyn, waana suuqyada hubka laga heli karo oo qof walbaba saacaduu raba heli karo, ku xiran tahay inkamka ama qarashka uu haysto. waayahay, aad iyo aad u mahadsan tahay. maxamed muuse ayuu ahaa oo wax badan arinta xalinta khilaafaadyada amba colaadaha daraasiyey. waa ku mahadsan tahay maxamed inaad naga aqbashay inaan wareysigan ku qaadno. waa mahadsantiin adinkana sidoo kaleeto. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah, maxay tahay in la sameeyo si xal dhab ah looga gaaro colaadaha ka jira qeybo ka mid ah dalka? nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacaddan. mahadsanidin.